wasaaradda caafimaadka Puntland oo kaashanaysa hay'adaha caafimaadka ayaa bilowday olole dadka lagu barayo dhibaatada ay leedahay cudurka duumada. Faafahinta warkaasi mar kale waxa inoo soo diray wariyahayaga Cabdinaasir Maxamed Cali. wasaaradda caafimaadka Puntland oo kaashanaysa hay'adaha caafimaadka ayaa magaalada Boosaaso xarunta gobolka Bari ka bilowday olole ballaaran oo dadka ku nool magaalada Boosaaso looga baarayo cudurka duumada. xilli sanadkii hore xilligan oo kale uu ka dilaacay cudurka duumada magaalada Boosaaso taasoo laga helay dad gaaraya 7,000 oo qof. ololahan oo ah mid ballaaran ayaa wuxuu si habsami leh uga soconaya kaamamka ay degan yihiin dadka barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso iyo waliba isbitaalka guud ee magaalada Boosaaso. madaxda kontaroolida shaybaarada malaria wasaaradda caafimaadka Puntland maxamed cabdilaahi cali oo kula hadlay warfidiyeenada mid kamid ah kaamamka ay degan yihiin dadka barakacyaasha ku nool magaalada Boosaaso gaar ahaan kuwa ku yaala bariga Boosaaso oo xilligaasi baaritaanka si habsami leh uga soconaysay ayaa wuxuu bulshada ugu baaqay inay la shaqeeyaan tiimamka wada baaritaanka. kal hore hadda ayay ahayd markii ay malaariyada ka dilaacday magaalada Boosaaso ilaa 7,000 oo qof ayaa laga helay xanuunka malaariyada in ka badan 35,000 oo qofna waa laga baaray xanuunka malaariyada. ilaa December sanadkan waxaa la soo report gareeyay ilaa iyo 7 qof in laga helay xanuunka malaariyada xarumaha public ee dawladda maamusho qaybta private-kana kama warqabno ilaa hadda. sidaa la aldigeed wasaaradda caafimaadka laanta duumada oo kaashanaysa WHO iyo UNICEF ayaa waxay hadda magaalada ka wadaa baaritaano. marka waxaan ka codsanaynaa bulshada ku dhaqan magaalada Boosaaso inay la shaqeeyaan tiimamka magaalada ka shaqeynaya oo baaraya si loo xakameeyo malaariyada magaalada ka jirta. Saciid Cabdiqaadir Maxamed madaxa malaariyada hay'adda WHO ayaa dhankiisa sheegay inay soo tariyaan kiisaska laga helay dadka qaba cudurka duumada ee ku nool magaalada Boosaaso isagoon ugu baaqay bulshada ku nool magaalada inay iska baaraan cudurka duumada ayna sameeyaan tallaabooyin looga hortagayo cudurkaasi. cudurka duumada xaaladda malaariyada way soo kordhaysaa sidaan warka ku hayno. isbitaalka waxaa la soo seexiyay hadda ilaa ugu yaraan 11 qof halka 3 qof ay ku dhinteen bishan November. xaaladda malaariyada maadaama ay sanadkii hore ka dilaacday xaaladda outbreak magaalada Boosaaso waxaa hadda soo kordhaya kiisaskii mar labaad soo noqday bishan November bay bilaabmeen ilaa 70 kiis baa laga soo sheegay magaalada inta bishii November ay ahayd. haddana waxaa laga soo sheegayaa ilaa 50 kiis bishan December 8 beri. ilaa hadda waxaan haynaa 3 dhimasho ah isbitaalka Boosaaso ku dhintay 10 qof ayaa la seexiyay. xaaladda sidoo hore ka khafiifsan tahay laakiin waxaan u sheegaynaa bulshada reer Boosaaso inay ka wacyigelishaan oo ay qaababka looga hortago malaariyada ay sameeyaan marakaneeca daaweysan ay hoos seexdaan. midda labaadna waxay tahay inay isticmaalaan mar allaala markay qandho isku arkaan inay tagaan isbitaalka guud iyo xarumaha private-ka ah iyo MCH-da si ay iskaga baaraan malaariyada daawo saxna ay qaataan oo qaabka kaliya looga hortagi karo. waxaa kaloo wasaaradda caafimaadka u qorsheysan iyo UNICEF in la qaybiyo marakaneeca daaweysan bishan dhexdeeda ama maalmahan fooda nagu soo haya. WHO wasaaradda caafimaadkana waxay ka qayb qaadanaysaa baaritaano magaalada laga sameynayo oo xaaladda malaariyada si loo ogaado dadkana xanuunsan la daweeyo. waxaan u sheegaynaa bulshada reer Boosaaso in ay xaaladda malaariyada ay ogaadaan in magaaladii malaariyada dib uga dilaacday aan u baahannahay inay ka hortagaan nala shaqeeyaan qaab kasta oo looga hortagi karna ay isticmaalaan. si kastaba ha ahaatee kala hore xilligan iyo kale ayay ahayd markii ka dilaacday cudurka duumada magaalada Boosaaso oo magaalo xeebeed waana tan sababtay in wasaaradda caafimaadka Puntland oo kaashanaysa hay'adaha caafimaadka in xilligan ay bilaabaan olole lagu baarayo dadka ku nool magaalada Boosaaso. Cabdinaasir Daacad telefishinka caalamiga ee Kalsan magaalada Boosaaso.